بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. qodob muhiim aan rabaa inaan usoo sheego soomaalida meesha joogta gaar ahaan qolada Swedish dadka soomaalida Sweden ku nool oo ku saabsan sharciyada baasaboorka Swedishka ah in aad iyo aad loo adkeeyey su'aalo aan macquul ahayna lagu soo daray. marka su'aalahaas si fiican looga fiirsado haddii aanay ku saamixin aqoonta iyo luqadan aanay ku saamixin waad rabtid inaad baasaboorka dalbatid dad u dhuun daloola oo sharciyadana wax ka yaqaan Swedishkana xoogaa adiga u malaynaysa inay kaa yara fiican yihiin la kaasho. taas waa mid aad iyo aad baa loo adkeeyey, waa waxaan si aan caadiyan baa loo adkeeyey. tan labaad, waqtigii waxaa lasoo dhawaaday hadda semester of fasaxyada la aadi lahaa, wadankii la aadi lahaa, hagbadihii la ururin jiray waa in meel lagu tago ama guryaha lagu soo dhisto ama dad loogu soo caruura lagu soo semester lagu qaato. marka dadka lacagaa kaashka u qaadanaya oo dollar ka dhiganaya oo ka qaadanaya jeebka guranayo, taasina waa dhammaatay. maantada aynu joogno waxaa lagu qabtay nin $7,000 jeebkiisa laga helay. ninkaas markii la baaray waxaa la yidhi inaanu nin shaqayn jiri ahayn oo qoladan mucaawimada qaato cayr iyo wax la mid ah. marka haddii aan kaa go-an tahay oo aad balaneeris ku jirtid inaad semester aadid oo waddankaaga aadid oo hagbad urursatay ama aad waxa samaystay ama wax biirsatay, u diro intaadan tegin dhoofin meel u diro oo sidii caadigeed waxaa walada loo dirsan jiray ugu dirso. tan saddexaad waxa weeye ingiriiska soomaalidu sida caadiga u tagtaa dadka waa fiisaha lagu soo rogay. fiisaha lagu soo rogana waddanka Yurub uu ka tirsan yahay, baasaboor weyn baa haysataa. fiiso inaad tigirka goosato keliya ahayd, hadda fiisaha lagu soo rogay. fiisaha lagu soo rogay maaha ujeedadu inay waddan kale dhoofayaan oo fiisa looga baahan yahay. waxa ujeedada dhan waxaa weeye dadka laba calaynaya, leena dad baa jira xagga ingiriiskana hadday doontaan ka shaqaysta, hadday doonaan cayr ka qaata, xaggana jooga cayr ka qaata ama waraqa ama lacagta shaqa la'aanta qaata. marka iska hubi intaadan dhoofin oo ingiriiska aadin ama wax kale aadin, howlahaaga iska hubi oo si fiican uga fiirso. leeno waa lagu baarayaa, waa tegay fiisa qaadanaysa, waxaago dhan waa loogay meesha u tagtid, meesha ka tagtid, waxaago dhan. taasina waa mid. lacagtii haddii aan si fiican u sheego, lacagta doolarka oo la qaadanayo oo dadku jeeb ku guranayo maaha macquul. maantada aynu joogno nin baa lagu qabtay $7,000 jeebkiisa laga helay. ninkaas waxaa lagu xibtay oo lacagta looga qaaday oo loo xiray ama loo wareystay waxay ahayd inaanu qof shaqeeya ahayn, cayr iyo waxa qaadan jiray. marka taasina waa mid. marka arrimaha sharciga baasaboor ku saabsan isagoo si tafatiran gadaal baanay kusoo sheegaya. waxaana ogaataan waxaa la yidhaha habar shaydaan wax la jiido waa tahay, wiil hooyadii shaydaan tahayna hooyadii nin jiida waa yahay. mugta habar shaydaan wax la jiido waa tahay, wiil shaydaanna nin habar hooyadii jiida waa tahay. marka dee inay Swedishkuna jiidaanna waa xaq bay u leeyihiin, innagana inaynu layna jiido iyo inaanu ogolaan. markaas saasaa inoo ballana. maskaxdaynu leenahay, maskaxdaynu isticmaalaynaa. saasaa inoo ballana. dadkuna ha ka fiirsado, ha sameeyo. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.